بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 5tii bishii afraad 2026 wuxuu soo saaray 5 wareegto hal wareegto oo xilka qaadisa iyo 4 wareegto oo ah magacaabid wareegtooyinka madaxweynuhu waxay u dhigmayeen sidan ku socota Abubakar Cabdiraxmaan Good Wacays wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota Maxamuud Ciga Yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota Jamaal Maxamed Jaamac Axmed wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo xilka qaadis mudanayaal sida aad la socotaan xilalka qaranka ayay dabcigooda tahay meerto iyo in hadba loo igmado cidda ugu habboon ee gudan karta waajibaadka saaran sidaas darteed waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad u hayseen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan idinka mahad celinayaa muddadii aad xilka hayseen iyo dadaalkii aad geliseen gudashada waajibaadka qaranka waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar dambe Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxay wareegtadii xilka qaadista wareegtada labaad waxa waa magacaabid waxaana u dhignayd sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markii aan tixgeliyey ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusan u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku qoran kow mudane aadan geedi qayaad inuu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland laba mudane maxamed cabdilmaalig axmed inuu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex Dr. Cabdisalaan Xuseen Cawaale inuu ahaado wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland afar garyaqaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun inuu ahaado wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada saddexaad ee magacaabistu waxay u dhigan tahay sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo aragnimadooda markii aan tixgeliyay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusan u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan cusub u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xusan kow mudane Mukhtaar Xaaji Maxamuud Faarax oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqdo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba injineer Maxamed Cilmi Xuseen Huuno oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex mudane Maxamed Muuse Xaaji Cabdi Galeyd oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska inuu ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland afar mudane Maxamed Yuusuf Ibraahim Faacuul oo ahaa wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland shan Dr. Maxamed Awdaahir Ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada inuu taariikhda maanta laga bilaabo oo ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland lix Marwo Samsam Maxamed Saalax Yacniile oo ahayd wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ahaato wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland
toddoba injineer maaliki cabdi xasan xirsi oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada inuu laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. wareegtada afraad oo ah iyadna magacaabid waxay u dhignayd sidan: markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan, markii aan tixgeliyey ahamiyadda la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u leeyahay qaranka, markii aan ku qancay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba, isla markaana inuu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan, markii aan la sameeyey la tashi, waxa aan go'aamiyey in doctor maxamed cismaan fadal laga bilaabo maanta uu ahaado la taliyaha sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. wareegtadii shanaad oo madaxweynuhu soo saaray oo ah magacaabid iyadna waxay u dhignayd sidan: markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan, markii aan arkay qodobka 3aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2011, markii aan arkay in xubintii hore ay bannaysay jagada kadib geeri ku timid, markii aan ku qancay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa, isla markaana uu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan, waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan u magacaabo mudane khadar xaaji yuusuf cabdilaahi inuu noqdo xubin ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan.